Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada janaalka Hawraal Media Production iyo Ustaad Al-Injineer Xasan Maxamuud Faraqle. Kusoo dhawaada casharkii labaad ee barnaamijkii Microsoft Office Program, buuggiisii koowaad ee Microsoft Word Program, casharkiisa labaad. Maanta insha Allah haddii la yiraahdo waxaynu dhiganaynaa maadaama aynu introductionkii soo qaadanay, waxaynu maanta qaadan doonaa casharka labaad oo ah creating a document, oo ah inaynu bal ogaano sida loo abuuro documenti wordka loogu abuuro. waxaan kaloo ogaan doonaa insha Allah haddii la yiraahdo waxa loo yaqaano bottomska ama interfaceka wordka, waxyaabaha loo isticmaalo. waxaan filayaa cashiradii hore inaad practical soo samaysay, isla markaasna aad samaysay wixii aan sameeyey, ama aad sharaxaad dhammaystiran aad ku fahantay noocyadii kala duwanaa wordka. waxaynu soo sheegnay marka koowaad markaan soo kicinayo inaan tagayo meesha loo yaqaano start button, kadibna aan kasii tagi doono all programs, kadibna aan kasii tagi doono intaan soo jeediyo scroll barka meesha ku qorantay Microsoft Office, kadibna aan kasii tagi doono Microsoft Office Word 2007. markaan saa ugu dhufto waxaa ii soo kacaya splash formki, ama waxaa kusoo kacaya marka koowaadba barnaamijkii loo yaqaanay Word. iminka markii aynu halkan joogno waxaynu joognaa work areadii ama meeshii ama barnaamijka interfacekiisii hore oo shaqada lagu qabanayay. waxaynu soo baranay dhinacyada kala duwan barnaamijka interfacekiisana soo aragnay, sababtoo waa muhiim qofku markuu halkan yimaado inuu garan karo daaqadan ama windowskan ama khaanadan furan ama meeshan hadda aad daawanaysaan muuqaalkeeda. haddii uusan si fiican u kala fahansaneen qoraalkiisu, hadduu xataa qoraalku qoro qoraalkiisu aad uma qurux badnaanayo. waxyaabahan soo aragnay waxaa kamid ah inaynu kuwaan aynu kusoo magacaabnay waxa loo yaqaano qeybaha minimizationka iyo maximizationka iyo closeka laga sameeyo. waxaan kaloo aynu soo sheegnay kuwan ama halkan loo yaqaano vertical scroll bar, oo ah scroll barka jooga ah, oo macnaha markii qoraalku uu badan yahay ayaan marba hoos u jiidaya ama kor u jiidaya. dhinacaana waxaan kusoo aragnay iyadana inaynu ku aragnay waxa loo yaqaano scroll barkii kale oo ah isaguna vertical scroll bar, oo ah scroll barka inta badan aynu hoos ka jiidayno ayaan kusoo aragnay. Okay, waxaynu sii gudan gali doonaa marka aynu arki doonaa maantay bottomka koowaad waxaa loo yaqaanaa home button. waa marka koowaad aad soo kicisid buttonka, marka koowaad active garaysaan oo shaqeynaya weeye. marka koowaad ayuu kuu shaqeynaya. markaad ku dhifatid inta badan waxyaabaha laga helo waxaa kamid ah khaanadan oo ay inta badan ka buuxaan font types ama theme fonts. farta nashqadaha ay leedahay, inta nashqadood ay fartu yeelanayso ayaad halkaa ku arkaysaa. tusaale ahaan waxaan qoranayaa maantay farbaan, waxaan qoranayaa wax loo yaqaano, waxaan qoranayaa qoraalkaas waxa aan insha Allah rajeynaya inaan wax ka bedbedelo. waxaan qoranayaa qoraal ah waxaan jeclahay inaan barto luqadda carabiga. qoraalka markaan qortay by default qoraalkan colorkiisu waa black. qoraalkan markaa saan doonaan ka yeeli karaa, dhinacaan doonaan ka hagaajin karaa. for example markii aan rabo qoraalka inaan wax ka bedbedelo, waxaan sameynayaa control A baan taabanayaa, ama halkaas intaas aan soo qabto baan soo jiidayaa. then hadhowdii farta aan rabo inaan kusoo saaro baan dul tagaya. tan iyada automatically isbedelaysa oo noocay doonta noqonaysa. adiga kaliya farta baa dooranaysa, farta nooca rabtid baa ka dhiganaysa. tusaale ahaan saas sameynaysa. waxaa kaloo ka sameyn karta waxa weeye size-ka. halkan waxaa laga badiyaa size-ka, ama waxaa loo yaqaano
cabirka farta ayaa laga badiyaa. Cabirka farta ayaa laga badiyaa. Ujeedaa way yaraanaysaa, way weynaanaysaa. 72 baa ugu weyn cabirka farta, marka waxaan ka dhigaynaa 20 baan ka dhigaynaa. 20 baa iska yar. Halkan waa farta kalarkeeda ayaa laga bartaa. Farta kalarkeeda oo farta kalarkeen ka dhigano nooca doonta ka dhigi karta. Farta kalarkeeda ayaa lagu bartaa oo aynu ku arkayna. Farta kalarkeeda marka tan misalan baa ka dhignay. Halkan oo kale iyada waxa loogu talagalay backgroundka fartu meesha ay taalo dhabarkeeda ama gadaasheeda kalarka ay yeelanayso baa iyadana laga dhigi karaa. Marka kalar ku haboon oo qurux badan bal raac inaad dooratid oo qurux badan ma sha Allah oo aad u macaan adigu nooca dhiganaysid farta waxa rabaa inaysan qarsoomin waxyaabahaas aad ka qaban kartaa. Home baan ku jiraa wali. Halkan oo kale waxa loo yaqaano waa alignment oo ah position kala dhiga dartan wuxuu yaalaa waxa loo yaqaano left buu yaalaa, bidix buu yaalaa, midig baa center baa dhigi kartaa. Halkan justify oo ah isu hagaaji kana waxa weeye left ama right baa geenaysaa. Kuwana waa spacingka inta uu dhaxeeyo leenka intuu space u dhaxeynayo labadan qoraalka hod dambeyn doono space intuu yeelan doono. Waxyaabahaas marka inta badan ka buuxa. Waxa kale waa si arki doontaa halkan oo kale calaamadihii baad ku arkaysaa. Bullet library way bulletkii hadii kale halkan aad ka sii furaysaa. Waa taas tan waxa ku arkaysaa bulletkii ama numberkii oo macnaha lambaradii meeshii laga saar lahaa hadee tahay non hadee one tahay hadee tahay ABC hadee tahay romanic oo ah kuwii nooca u samaysnaa ama ABC ama AB capital ama aan lahayn parenthesis ama qoys aan lahayn ama iyadoo lambar baa sameynaysaa. Noocyadaas oo dhan marka iyagoo isku jira marka iyagoo already diyaarsan marka qaababkaas baa inta badan halkan laga helaa. Waa paragraph calaamadii paragraphka kuwan aan soo sheegnay iyaguna waxa weeye waa design ama theme diyaarsan oo qoraalka sidoo yahay wax ka bedelaya. Marka inta badan interface-ka hore waxa loogu talagalay in macnaha qaabkaas loo isticmaalo. Okay, waxaan fahamtay home marka waa meesha ugu horeysa oo marka koowaad macnaha marka koowaad inuu soo galno aynu ogaanayno shaqada ugu badan meesha ka dhacdo oo fartii nooceeda baan ka dooranayna, size-kii baan ka dooranayna, alignment-ga meesha la dhigay baan ka dooranayna, color-kii baan ka dooranayna, waxa loo yaqaano dhalada color-keeda ka dooran. Okay, waxa soo haray b-dan oo kale waa marka ku dhifatid wixii hadda marka aad rabtay inaad ku dhifatid waa inaad doorataa. B marka ku dhifatid oo jeeda isbedelka ila fiiri waa bold baa noqonaya. Bold baa loo sagaa ama control B isbedel way aragtaa. I waa maxay italic waa chief I control I baa la hayaa. Underline waa maxay control U oo ah hoos in laga xariiqo qoraalkii. Control U in hoos laga xariiqo. Haddii halkan ku dhifatidna waa maxay iyana qoraalkii dhexda in laga xariiqo. Qoraalkii nooca in laga dhigo, qoraalkii nooca laga dhigo, qoraalkii nooca laga dhigo. waxyaabahaas oo dhan baa loo isticmaali karaa. Control Z baa kaga noqon karta. Marka inahaas ayaynu arkaynaa maantay in uu yahay waxa loo yaqaano cashirkeenu. Waxaa marka aynu ogaano waan baranay sida guud marka kooda la bilaabayo meesha laga bilaabo button-kooda maanta baranay home iyo shaqooyinka laga qaban karo iyo waxyaabaha ku sii hoos jira. Insha Allah cashirkeena labaad maanta intaas ayaan kusoo gabagabeynayna. waxaan insha Allah rajeynayaa cashirka labaad inaad la socon doontid. waxaan rabnaa tartiib inaynu cashirka u fahanno oo aan isku dayno in ardayda pace-ka iyo kuwa kale bay nala socon karaan. waa al-ustaad Injineer Xasan Mahfralo idin leh la soco cashirka labaad. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.